صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا لباك بالدموع الساجئات يتلظى بشعاع بالرمال السافيات وجه دنيانا لباك بالدموع الساجيات يتلظى بشعاع بالرمال السافيات اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم هذه الدنيا سراب للنفوس الظامئات كلما لاح بقرب منها قرب الأمنيات كلما يزداد بعدا كالنجوم النائيات اللهم صل على محمد يا رب ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة وعنوان كيغو كما قعبين هي cibaadada oo la badsado waqtiga fitnada cinwaanka muxaadaradan waxaan ka soo xigtay xadiis nabiga sala allahu calayhi wasalam laga soo wariyey xadiiska waxaa soo saaray alimaam muslim raximahu llahu tacaala nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu yidhi alcibaadatu fi lharji كهجرة إلي العبادة في الهرج كهجرة إلي حديثك معنيه سوحوي عبادة العبادة يستو وقتك أي فتنك إيو إسخلافك ددك أبطو ددكنا أي كم مشغولان عبادة إلهي سبحانه وتعالى cibaadada waqtigaasi ay fidnadu jirto ee dadkii ay adduunyo ka mashquuleen ay ka wahsadeen cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhtilaafkoogii iyo ay magaranaysaa u batay cibaadada zamankaasi iyo waqtigaasi la cibaadaystaa waxay la mid tahay buu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ka hijratin ilaya sidii hijro aniga laysoo hijrooday waad ogtihiin ayuha alikhwa walakhawaat muhaajiriintii hore ee maka ka hijrooday ee wax walba uga tegay ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa iyo nusrayn ay u nusraynayaan diinta ilaahay iyo rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam waad ogtihiin makaanada iyo maqaamka weyn ay ku leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa xitaa culimmadu ay tilmaameen
haddii la isbarbar dhigo muhaajiriinta iyo ansaarta inay muhaajiriintu ay ka fadli badnaayeen ansaarta lama yeeraysanaayo waa kuwii isbarbar taagay muhaajiriinta nebiga isbarbar taagay sala allahu calayhi wasalam guryahoogii iyo magaaladoodii iyo xoolahoogii ku soo dhoweeyey nebiga iyo sala allahu alay wasalam muhaajiriintii la soo hijrootay laakiin dhinaca fadliga muhaajiriinta ayaa ka fadli badan ansaarta ajarkooguna waa aad iyo aad buu u weyn yahay waayo wax walba waxa ay uga tegeen ilaahay dartii bay uga tegeen waxaad qiyaastaa ood sawirataa qowlka nebiga sala allahu calayhi wasalam oo xaqiiqatan fursad inoo siinaya waxaynu ku nool nahay zaman fitno ayaynu ku nool nahay waxaynu ku nool nahay zaman ay dadku diinta ay ka wahsadeen waxaynu ku nool nahay waqti ay dadku ay ka caajiseen oo ay ka mashquuleen ilaahay cibaadadiisa dikrigiisa salaadiisa soonkiisa iyo in awaamirta ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu dhaqmo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ugu bushaareynayaa qof walba oo zamankaasi oo kale nool haddii uu cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mashquulo haddii uu qalbigiisu u jeedsado ilaahay jalla wacalaa haddii uu waqti u siiyo cibaadada ilaahay u cibaadaysanayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay cibaadada zamankaasi fitnadu ay jirto la cibaadaystaa waa ka hijratin ilaya waa sidii aniga la ii soo hijrooday oo kale allahu akbar ayuha alikhwa walakhawaat inta aanan gudagelin macnaha xadiiska oo aynu sii sharaxno oo aynu soo naqillo waxay culimmadu ka yidhaahdeen waxay isweydiin leh waqtiga aynu nool nahay maanta iyo zamanka aynu taagannahay ma yahay zaman fitno waxay ila tahay inaynu ku jirno zaman ay fitnadii ay farabadatay oo ay dadkii ay ka fogaadeen ku dhaqankii diinta haddaad dhinac walba maanta adeegto axwaasha iyo dhacdooyinka iyo waqaa'icda adduunka maanta ka taagan khaasatan kuwa caalamalislaami ka taagani waxay yihiin dhacdooyin dadkii ku keenay wareer ku keenay oo xitaa ay dhacday in dad badan oo muslimiini ay diintoodii ay ka fogaadeen u shaki ka galay arrimo badan oo diinta ka mid ah ku dhaqankii islaamnimada oo ay dad badan ay fudeedsadeen daa'iman waxa jira oo run ah dad cibaadada ilaahay ku dadaalaya waxa jira dad muslimiin oo islaamkoodu wanaagsan yihiin laakiin haddaynu suuradda caamka aynu eegno waxaan filayaa waxaynaan isla khilaafayn aynaan isku khilaafayn oo aynaan isku diideyn inuu maanta ay fitan fara badani ay adduunyada maanta ka jiraan qofka mu'minkee xaqina uu ku dadaalayo sidii ay diintiisu ay ugu badbaadi lahayd sidii islaamnimadiisu ay ugu nabadgeli lahayd si uu adduunyadan uga tegi lahaa isagoo muslin ah oo diintiisii iyo iimaankiisii aan shubahaad iyo shaki aanay gelin camalkiisii cibaadadiisiina aanay nuqsaan aanay gelin waa qofka mu'minka ah ama nin ha noqdo ama haweeney ha noqotee ee ku dadaalaya xariiskana ku ah diintiisa iyo islaamnimadiisa waayo ayuha alikhwa walakhawaat waxa runa in qofka mu'minka ah haddii uu adduunyadan uu ka tago oo dhimashadu u timaado isagoo ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsaday islaamnimadiisii haystaa wuxuu ilaashaday raasamaalkiisii buu ilaashaday ayib xadiiska yani in haddaan usoo noqdo awalan ayuha alikhwa walakhawaat yani waxa laynooga digay fitnada ayaa laynooga digay fitnaduna waxa weeyaan sida ay kitaabka ilaahay jalla wacala ugu soo aroortay allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waalfitnatu ashaddu min alqatl waalfitnatu ashaddu min alqatl sheekh almufasiriin alimaam altabari raximah allahu tacaala ayaa isagoo aayaddaasi qur-aan ka fasiraya ee ilaahay uu ku yidhi waalfitnatu fitnada ayaa ashaddu min alqatl iyadaa ka daran dilka iyadaa ka daran haddaba maa hiya alfitna fitnada uu ilaahay subxaana wa tacaala oo aayadda qur-aanka uu ku yidhi fitnadaa ka daran dilka alimaam altabari sheekh almufasiriin raximah allahu tacaala waxa uu yidhi fitnadu waa qofka oo diintiisii ka fidnooba bimacnaa wuxuu yidhi qof muslim ahaa
وإلهي سبحانه وتعالى إسلام نما كم النايستي ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكدغي qofkaasi haddii diintiisa lagu ibtileeyo dabeetana imtixaankaasi ibtiladaasi aawadeed uu qofkaasi markaa uu diintiisii uga baxo oo gaal u noqdo gaalnimada uu noqday iyo shirkiga uu ku dhacay iyo islaamnimadaasi uu ka ridoobay ayaa ka xun dil isaga la dil lahaa bimacnaa maxaa loola jeedaa haddii ku adkaysiga diintaada istiqaamada islaamnimadaada ثباتك يسقنان تأدين تذات كسقنان إسا حتى هدي أي كوك كلفتو إن قد لجا جويو أود نفت أدويدو أو لكل دورن سيو إلا قدير يناد قالوا ذو واحد دورتها إن لقدير دوره وايو دلك يعني في الندى الدين تهدي أتكفي ديودي هي الردة الإسلام ما هذه كهجر دعدي هي إسلام ما دي أود كن نقطهي وحول أرن سهل معها إن قالوا ذا وحكى في عن يدل قديرو إن أصلان ماذا كبح ذا وحكى في عن يدل قديرو إن الردوا ذا وحكى وانا أكسنتيو قد لقى جويو أيضا معناه ساسويا والفتنة أشد من القتل اسمح يكون شيء سأيو لك والأخوات وحيكون شيء يسوح والبعد يدا كدعاء ببعتك استوى كصامرتها دين هذا كتير إسلام ماذا ذا وحويان عيارها قلين يانو قوفي نين دين تادا كتشو كتوس أو كسيحو أو كفكر هبيني مالين با إن مالين تدي مشادو أي كوتي مادو إن أدمتو أديغو مؤمنة إلهي سبحانه وتعالى وحيري ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا من نبي الله سبحانه وتعالى وليه آية القرآن إذنكم مسلمين مو يعني بمعنى إسلام ماذا كل انتبهوا إلهي سبحانه وتعالى وليه نبي الله يعقوب يسوى دردارة يعني إن بنيه وحاوكيري فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بيسقون كيري هذا مننا إذنكم مسلمين مو يعني إلهي بعدين تيني دورتي إسلام ماذا كل انتها مركا أيها الأخوة والأخوات يعني فتنة إن إلهي سبحانه وتعالى أعد كل شيء والفتنة أشد من القتل والدين تقول له دوبو وإسلام ماذا أول غبحه وإذا الدين تهدي أي مقرنسها أي ضعيفته إننا نروح لنقبه هي زمن كان أي نور الله زمن فتنة زمن أيدتك خلافين زمن يوم وقتي شك بدن قلوبتي لجليي ما هاي نجا تاسي نور راعة وحي نور راعة إنه دول إسلاميات ما أنت كمان نولين مال إذا كا إن ميكروفون كلا جا قديم أيو كمان نولين دول إسلام كلا جا رقم أيو مركز الدجال كلا نجرب شيء أيو إنه الدجال ومن ذو بهي إلا بتشباره لماذا أيها الأخوة والأخوات وأيها الأخوة بهي إنه كنا إسرائيلنا عرورتنا إنه إلالينو أو إن دين تي إسلامي ماذا أي نكون دقنا أيالينو بهي طيب هذا نص النقطة حديث أيها الأخوة والأخوات النبي صلى الله عليه وسلم محوي لعبادة الزمن كنوع عاسية لعبادة استا وحي لم نتهي إيضو أريق اللي يسو هجرودي علماء وحي لهذين أولا الهرج وحي سيدا إمام نووي أي تلمامين ووقت أيضاك خلافان أيضاكنا أي مشغولان بحيكون مشغوليان الدويو الرمكلة وحيكون مشغوليان عبادة إلهي وحيابي فرض كأها إلهي كواجبي مياذا ركتقوف مسلنا وهدنا صلاة دي فرض كذا أنتو كنين مياذا ركتقوف مسلم شيغانايا وهدنا بشير رمضان أن سومين مياذا ركتقوف مسلنا وزكاة لقول لي هي وهدنا زكاة أنا حليسي أن كبحنين مياذا ركتقوف مسلنا وحج كواجبي وهدنا حجيين مياذا ركتي قبر مسلمة وأن مقرنس حجاب كي هي مرضي وإلهي سبحانه وتعالى كواجبي إن اسكو أسترتو أن اسكو أسترين مياه ضربتي دد وقت جوجي بدن كيسي الدنيا قلينا لكن وحي إلهي السيان سبحانه وتعالى وياهي وقت ير أو قابل وياهي والزمن كنوع عاصي أو كلاويان محل يسكو مثالي والنبي يقول يقف حلي قاسي عبادة استا
cibaadadiisu waxay la mid tahay ka hijratin ilaya sidii hijro aniga laysoo hijroodoo kale culimmadu laba macno ayay ka bixiyeen macnaha hore waxa weeyaan awalan hijradu waa inuu qofku la baxsado diintiisa uu kala baxsado مثلكي oo kale saxaabadu ridwaanullaahi ta'ala calayhim markay maka ka hijroodeen madiina hijroodeen maxay dhulkii aabayaashood dhulka ku koreen guryahoogii xoolahoogii ehelkoogii maxay uga tageen oo madiina ugu hijroodeen waxa weeyaan waxay la baxsanayeen ridwaanullaahi ta'ala calayhim diintooda ayay la baxsanayeen marka hijradu macnaheedu waxa kamida inaad diintaada aad la baxsato oo dhul aanad islaamnimadii aanad ku dhaqmi kareen cibaadadii ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanad xaqiijin kareen ayaad ka tagtay oo waad ka hijrootay waxaad u hijrootay dhul aamin ah oo ilaahay caabudi karaysid islaamnimadaada aad muujisan karaysid caruurtaada aad islaamnimada iyo ehelkaaga aad ku dhaqi karto macnaha labaad ee culimadu ay ka bixiyeen xadiisku waxa weeye inay yiraahdeen saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam la hijrootay waxay ahayn dad yar bay ahayn tiradoodu ay yar tahay yani marka loo qiyaaso dadkii reer Makka ee nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwadiisii diiday ee ka gaaloobay marka kuwa loo qiyaaso saxaabadii nabiga rumaysay sallallahu alayhi wasallam iyagana ilaahay raali ka noqday ee u hijrooday madiina u hijrooday waxa weeyaan dadka hijrooday tiradoodu way yareen dad yar oo tiradoodu ay yartay ay ahaayeen xilliga fitanka iyo ay jiraan ay dadku ay dunyada ku mashquulaan ay cibaadada ilaahay ka mashquulaan sidoo kale dadka ilaahay u cibaadaystaa iyagana tiradoodu way yartahay marka sidoo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu labada arrimood isku barbar dhigaayo adba waad aragtaa hadii muhaajiriintii hore tiradoodu ay yareed zamanka fitanka iyo marka axwaashu isbedesho ay dadka diintoodu ay daciifto ay cibaadada laga wahsado dadka cibaadaysta ee sooma ee masaajidada yimaada ee dhikriga ilaahay badiya ee diinta u adeega ee magaranaysa islaamnimada magaranaysa ka fakira ee cibaadada ilaahay badiya ee shariicada islaamka ku dhaqma zamankaasi dadka sida yeeliya iyaguna waa dad ay tiradoodu yar tahay marka adiga maanta waa ku hortaa la ayuha al-akh wa ayatuha al-ukht waxa la joogaa zaman fitna ayaa la joogaa ee waxa la inaga sugayaa inaynu cibaadada ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu badsanno طيب zamanka fitnada ayuha al-ikhwa wal akhawat cibaadada ilaahay subxaanahu wa ta'ala loo cibaadaysanayaa waa cibaado laga baxsanayo fitnada laga baxsanayo waa cibaado kugu caawinaysa inaad fitanka ka baxsato waa cibaado kugu caawinaysa in diintaadu aanay nuqsaamin waa cibaado kugu kaalmeynaysa inaad islaamnimadaada aad ilaashato bimacnaa waxa weeyaan cibaadada yani firaarkan la leeyahay diintaada la baxso waa firaar iijaabiya weeyaan ee maaha firaar inhizaamiya ama salbiya maaha in cibaadaduna waa macno shaamila weeyaan oo markaynu leenahay waqtigaasi hala cibaadaysto ayuha al-ikhwa wal akhawaat uma jeedno salaad iyo soon hal isku soo koobo ee waxa loo jeedaa al-cibaada bimacnaha shaamil cibaadadu waxay leedahay macno shaamila oo ballaaran ayay leedahay oo abwaabul khayr inaad ku dadaashid ayaa laga sugayaa ama salawaad ha noqoto aad salaadaada aad badsato tii faradkeedu waa kugu waajib salaadaha sunnaha aad badsato sadaqada teeda waajibka hadii lagu leeyahay iyo teeda in sunnaha ah ama nafliga ah siyaamka bisha ramadaan waa waajib ku saaran weeyaan xajka umrada in dadka loo ihsaan falo in dadka mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo in qalbigaagu noqdo qalbi saafi oo dadka muslimiinta oon xumaan iyo xaqdi iyo xasad midna aanu hayn inaad dadka wanaaga aad farto inaad xumaanta u diido iyo inaad samayso wax walba oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala u jecel yahay amal walba iyo qowl walba iyo niyad walba oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali gelinaysa inaad ku dhaqanto weeyaan kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batina sida sheekh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala ulaha cibaadadu waxa weeyaan waa wax walba oo ilaahay u jecel yahay
wax walba oo ilaahay subxaana wa tacaala raali geliya hadalka ilaahay raali gelinaya ficilka iyo camalka ilaahay subxaana wa tacaala raali gelinaya niyada wanaagsan ee ilaahay subxaana wa tacaala raali gelinaysa cibaadada taasi ayaa loola jeedaa marka waqtigan oo kale ayuha alikhwa alkhawaat khayrka ha yaraysan cibaadada ilaahay subxaana wa tacaala badso camalka saalixa badso qalbigaagu ilaahay jalla wacalaa ha u jeedsado qalbigaagu ilaahay subxaana wa tacaala ha u jeedsado haddaad in badan adduunyada aad ku fikirtid oo qalbigaagu ku tacalluqo adduunyada waxa ay taasi kugu keenaysaa inuu qalbigaagii iyo iimaankaagii ay daciifaan saasi ayaa looga baahan yahay qofka muslimka ayuha alikhwa walakhawaat culimmadu waxay tilmaameen in cibaadadu ay wanaagsan tahay xilliyada ay fitnadu jirto shareecadana taa waa lagu hayaa masalkii oo kale salaada tahajjudka oo kale nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay in salaadaasi ay tahay salaad fiican bal nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay in salaada tahajjudku ama habeenka la tukadaa markay dadku hurdaan ay salaadaha ugu fadli badan tahay bacda alfaraa'id sababtu waa maxay waayo waxayna xilligaasi habeennimada dadku waxay ku jiraan khaflad bay ku jiraan dadkii way hurdaan dadkii ilaahay subxaana wa tacaala uma soo jeedaan walidaalika ayaa la ammaanay dadka xilligaasi kaca ee ilaahay subxaana wa tacaala u cibaadaystaa masalkii oo kale soomka naafilada ah ee la soomo bisha shacbaan nebigu sala allahu calayhi wasalam bisha shacbaan oo ah bishan aynu ku jirno oo waxay u dhexaysaa rajab iyo ramadaan bay u dhexaysaa nebigu sala allahu calayh wasalam soonka in sunnaha ah ama soonka naafilada ah nebigu sala allahu calayh wasalam aad iyo aad buu u badsan jiray xataa caaisha radi allahu tacaala canha waxay soo warisay inuu nebigu bisha shacbaan badankeega uu soomi jiray nebigu sala allahu calay wasalam markii ay caashi weydiisay ama nebiga sala allahu calay wasalam la weydiiyey maxaad soonka naafilada ah een waajibka ahayn aad bisha shacbaan aad u badsanaysaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi bishaasi waa bil yacni dadku ay khaafiliin ka yihiin yacni uma fiirsadaan fadliga ay leedahay waayo waxay soo dhammaysteen rajab oo min ashhuri lxurum ah waxaana ku soo socota ramadaan oo bisha weynideeda aynu naqaano aad garanaysaan markaa markay shacbaan soo galaan dad badan baa khaflad baa kaga dhacda oo maalinkaa maanta ah kuma baraarugaan weynida iyo fadliga ay leedahay bishaasi marka maxaad taasi tilmaamaysaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu doonayaa inuu ilaahay u soomo inuu soonka u badsado bil ay dadka badankoogu laga yaabo inay khaafiliin ka yihiin ayib salaada duxada oo kale salaada duxadu waa salaatu awaabiin sidaad xadiiska aad ku maqasheen salaada duxada nebigu sala allahu alay slam ee barqadii la tukado nebigu aad iyo aad buu ugu dadaali jiray sheekh maxamed saalix ibn cuthaymiin raximah allahu tacaala ayaa waxa uu wax ka sheegay sababaha keenay fadliga ay salaada duxadu ay leedahay salaada barqadii la tukado wuxuu sheekhu yidhi يعني مثل كو كلمة وقت قود حياة صلاة الظهر يا صلاة عصر ووقت قابن وقت قود حياة صلاة عصر يا صلاة مغرب ووقت قابن مغرب عشاء وقت قابن بود حياة عشاء إلا فجر وقت قود ديري هي لكن وحى مشروعة أو إنه بنان إن نتهجد كنه إن نتهجد كنه أي إنه بنان لكن هذا يكتب بعد صلاة الفجر مركل تكدو إلى صلاة الظهر ووقت آدو دير ولذلك أيادتك أوابينتي ما دون أيان إن إله سبحانه وتعالى إلا بان وقت قاعد ديره وفترة طويلة ويان بين الفجر والظهر وقتك صلاة فجر أن تكني إلا صلاة الظهر إما قحل تكذا فجر أفرتي بركة لتكذا صلاة الظهر نوع قرمة وكودي بركة أنت أساس عدد 100 صلاة الله أنا هنكرتها قفك منكم يو كما قناني يا صلاة دي waayo waxa weeye qofka muuminka salaada uu jecel yahay sida awadeed ayaa yaani ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo baneeyay inaynu salaada duxada xiliga aynu tukano waxay kala culimadu ay sheegeen salaada duxada waa xiliga barqada ay tahay baa la tukadaa illa salaada duhur ka hor inta zawaalku aanu dhicin
dadka badankoodu waxay ku maqan yihiin shaqooyin bay ku maqan yihiin dadka badankoodu waxay ku mashquulsan yihiin adduunyadoodii walidaalika ayaa qofka mu'minka salaatul awaabiin baa la yidhi dadkaasi saalixiinta ee mu'miniintii iyagoo adduunyadoodii ku dhex jira oo shaqo haya oo iskuul ku maqan oo dantoodii ku foofay ayaa haddana waqti bay qaadanayaan time out bay qaadanayaan ilaahay bay subxaana watacaala xusuusanayaan dabeetana way weysaysanayaan ilaahay bay u tukanayaan حتى واحد سلف كقار كون ده قصة ولي رحمهم الله تعالى إن بين المغرب والعشاء أي صلاة السنة مطلقة إني بتنشرين وايد ضد كقار كون بلغيا با إن حل جاسي لفتيسة أي غفلة كل عضو تسألون كان عن صوت شيء أيها الأخوة والأخوات وحنو قد الله إن ندي عديه إن وقتها أي ضدك قفلة أو إيشان حليا أي ضدك هالمامان ذكرك إلهي سبحانه وتعالى حليا أي dadku ka mashquulaan ilaahay xusidiisa iyo dhikrigiisa xilligaasi cibaadadu way wanaagsantahay xilligaasi ama waqtigaasi in la badsado cibaadada ama quraan akhris ama soon ama dhikri ilaahay ama tasbiix ama tahliil ama sadaqo ama muslimiinta oo la caawiyo dadka baahan oo isbarbar taago waqtiyadaasi ayuha al-ikhwa wal-akhawat waa waqtiyo muhiima oo loo baahan yahay in qofka muuminku inuu ka mashquulo aan loo baahnayn sideedana ma ayuha al-ikhwa wal-akhawat qofka muuminka waxa looga baahan yahay inuu samaysto waqtiyo uu naftiisa ku gaar yeelo rabbigii subxaanahu wa tacaala waqtiyo uu naftiisa ku gaar yeelo xuska rabbigii subxaanahu wa tacaala culimadii salafkuna ayuha al-ikhwa wal-akhawat aad iyo aad bay u jeclaan jireen inay samaystaan waqtiyo ay dadka ay ka dhex baxaan oo maxay uga dhex baxayaan waxay uga dhex baxayaan in ay maalinka maanta ay khalwo galaan khalwadaasi oo naftoodu ay gaar ku noqonayso oo ay u banbaxayso rabbigood oo inay carruuri la joogin xaas la joogin zawj la joogin saaxiibayaan aana la joogin waqti uu qofka muuminku bal keli u noqdo uu ka fakiro naftiisa uu naftiisa xisaabiyo uu qaladaadkiisa dib ugu noqdo uu naftiisa uu run u sheego oo muxuu naftiisa runta ugu sheegayaa waxa weeyaan ilaahay dariiqiisa miyaan ku toosanay cibaadadii ilaahay subxaana wa tacaala miyaan fulinayaa waxaan idin soo naqilayaa qowl uu yidhi sheekh alislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala oo tilmaamaya macnahaasi aan sheegay oo ah in qofka muuminku u baahan yahay rag iyo dumarba waqti ay ذكرك إلهي إسكو قاريلان خاصة أيها الأخوة والأخوات يعني دمرك وحلاقيا با إني مشغولك وبدني هي عروري كورينيان قريق يكون مشغول سيهين لكن وراشة مسلمات دعاه وحلوب هي إني وقت يلطو وقت قاسي هبين هالنقطة مالين هالنقطة مثل كيوكل وقت هذا وهو ناقص وحكميدا ساعد وقدم بيسمع مالين تجمعها أو علماء بدنا إليهين waxaa dhici karta inay noqoto saacad al-ijaaba saacada ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta jimcaha ku jirta ee maalinka maanta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadka ka aqbalo yani su'aalahooga iyo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay weydiisanayaan sida al-xaafid ibn xajar iyo ibn al-qayyim ay sheegeen aqwaal badan bay soo arooriyeen laakiin laba waqti bay yidhaahdeen ayaa ay u badan tahay in saacatul ijaabadu ay ku jirto oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka uu ducada ka aqbalayo waxay yidhaahdeen waqtiga hore waa marka khatiibka khudbadda maalinta jimcaha akhriya uu mimbarka fuulo ilaa salaadu ay dhammaanayso waqtiga labaad ay yidhaahdeen waa la rajaynayaa inay saacaddaasi ay noqotona waxa weeyaan waa saacadda ugu dambaysa maalinta jimcaha intaan cadceedu dhicin walidaalika ayaa dadkii salafku ay aad ugu dadaali jireen saacaddaasi oo ilaahay subxaana wa tacaala ay u guyi jireen marka saacaddaasay noqon kartaa habeenkii bay noqon kartaa xilli kale noqon kartaa عموما ولذلك حتى اعتكاف كلفتيسا maxaa loo sharci yeelay اعتكاف kuma inta masaajidka la fadhiisto la sheekaysto la baashaalo oo computerka lagu shaqaysta la tabka masaajidka loo soo qaato la ayuha al-ikhwa wal-akhawat اعتكافka fikradda ka dambaysa waa maxay waa inaad dadka aad ka fogaato waa inaad dadka aad ka dhaxbaxdo waa inaad naftaada aad ku gaar yeesho cibaadada ilaahay dhikrigiisa
qur'aanka ood akhrido nafta ood xisaabiso aakhiro ood ka fikirto bal adduunyadanina mashquulisay ood badib aad kaga xisaabiso macnaheeda iyo inta leeg tahay iyo in birintooda la dhiman doono aad ka fikirtaa loo jeedaa yani hadalkeedu ku dheereen sheekh alislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahay waa hadalkaan idhin unbuu sheekhu uu leeyahay wuxuu yidhi raximah allahu tacaala walaa budda lilcabdi min awqaatin yanfaridu biha nafsah في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه وحيري شيخه رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ولا بد للعبد من أوقات أدونك رجع دمربا وحوبا هي وقتبه بهي ينفرد بها نفسه وقت قاسي أو نفتي سجار كن قرايو وحد وقت قاعد يلسا ووقت آد ربي قاسيسي ووقت آد إلهي آد كوغار يشي علمان واحد هذان كلي ميل فريسو نفت هذا كلي كل نقاه إسكا إلهي وحيابها كمشغولية سياد قدر أنتو حلاوة الذكر إلهي سياد قدر أنتو معانك الذكر إلهي سبحانه وتعالى أما القرآن أخرس أما مالك ما أنت ذكر إلهي تسبيحي تهليلي أي تهي ساسو كذا وحأدونك وبا هي بيري لا بد ولا بد للعبد وقتي ونفتي يعني وكو قاريلاي ومحو قاريلاي بيري في دعائه إنه إلهي بريو وذكره إنه إلهي حصو وصلاته إنه صلاتي ستكدو وتفكره إنه فكره ومحيو كفكره أخيرا فكرت هذا بهانتي يا 7 days a week هداد هاي ويك كنت هاجنتهاي أو مشغول سنتهاي أو نتفكرين با أنا آخرة كفكرين أنا كفكرين حباش هذه يا بوجن حباش هذه القضية يا بوجن وقتي كان ماضي يا بوجن نهاية هذا يسود دواتي هاي ويجون هفوتشنانه بل شوكسو حسابي قبرك كفكر آخرة كفكر لمشهد كفكر الدنيا اللي يسكو وريريي بل أنت مر يرجوتيسو ساعدنا هاته صدر مرنا هاته بل كلي يسكو نقو ونفط هذا الله هذا ونفط هذا رنتو الشيء وتفكره بويلي ومحاسبة نفسه هي إنه نفتيس حسابه نفط وين لحسابه شيخ أحمد جزاه الله خير وكي محاضرة إذن كل شيء إلا حسابه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا نفين حسابه أنت ألا حساب حساب آخرة شرتا والله الدين دولار والبا ميشو كاسو قلي ميشو أتكون بحسي والقوي دينيا عمري قاقي واحد تكون بحسي والقوي دينيا دلير لماذا دي يا شباب لماذا دي ميشاد قيسي والقوي دينيا إلهي بترتاك سمالة قيامها إذا واحد ترجماني أنيني دحين إلهي بتوصف الله الله يا إلهي يكو أبو رد هداد الدنيا كله ذي ما أنت إلهي بتوصف الله الله إذا لقى ترجمين توصف بعد وجود شوابي سا حساب النفط اللي حسابي هو تاوين أيها الأخوة الأخوات علماء دي سلفكو هبينك أنت رسحن أيها وحويا وقت بيقادة شرين أو يسوي دين شرين نفته ده محان ما أنت سمي محان دم بيا كل عي محان عمل صالحان كسبضي سلف رضوان الله تعالى عليهم سيدا لقى سوريي وحي كمروا قون شرين أو إلا أي شرين ذنوب أي لباتن سنة كوري سميين وحي لا أي شرين كمروا قون شرين ذنوب أي أفرتن سنة كوري سميين يا أقول الله دم دافي يا أقول الله كود دم دافي يا أقول الله سبحانه وتعالى وشرنا وإله سبحانه وتعالى ونقلنا أيوه وحاصلا وغيب ويان إلهي رجوا بينك قبنا لكن إلا حسابه وواجب ويان أيها الإخوة والأخوات وعكلا شيخ يريد وعكلا وقبها هي وإصلاح قلبه إنه قلبه جيس إصلاحيه وقومنا أيها الأخ وأيتها الأخت إن أعماش قلبك أي كم مهم سن أعماش جوارح ده أعماش قلبك أي كم وناكسن إلا توسيانا أي كأذك تهي أعماش أفك يأدينك لغسم أيوه إن أراد المسلمين تنعن إن أراد المسلمين تحاسدين إنه قلبك قوة ناكسن هذا تدك مؤمنين تا هي تدك مسلمين تا إن إلهي تعلاته
inaad awliyada ilaahay jeclaato in wixii ilaahay necab yahay aad necab tahay waxa weyn waa acmaasha qulubta weeyaan niyada inay ilaahay subxaanahu wa tacaala khaalis u noqoto inama alacmaalu binniyaat kama saxa can nabiy sala allahu alay wasalam waa qalbiga weeyaan qalbigaaga islaaxi qalbigaaga wanaaji qalbigaaga hagaaji qalbigaaga ka saar xasadka iyo nacaybka ka saar qalbigaagu ha noqdo mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu arkaayo nebigu sala allahu alay wasalam waxa uu soo wariyey xadiiska uu ilaahay jala wacala uu leeyahay ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum ilaahay subxaana wa tacaala ma eegaayo ilaahay subxaana wa tacaala yacni suuraddiinna ilaahay subxaana wa tacaala ma eegaayo ajsaamtiinana ma eegaayo ilaahay muxuu eegayaa walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إلهي ما إيجايو سورة دين سيد وقتي كيبا قروح بدن كيبا فرحن كيبا دير كيبا قابن إلهي سورة دين ما إيجايو إلهي سبحانه وتعالى أجسامتنا يتشركيننا ما إيجايو كيبا وين كيبا ير لكن الله سبحانه وتعالى محوط على عنايا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم قلوبتنا هي أعماشنا قلبي قاية وناجي أعماش هذا وناجي هذا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حلقة سكو أروريا وإصلاح قلبه مركز نفت هذا قوني الله نقول يصو وحلاقات دنيا إن القلب قاية إصلاح الصو واي الشيخ الحكراوي يري فهذه يحتاج فيها qofku wuxuu u baahan yahay suu waxyaabahaas oo dhan u sameeyo inuu fakiro adduunyadan ka fakiro inuu aakhiro ka fakiro inuu dhimasho ka fakiro inuu ka fakiro inuu maalin dhiman doono inaan adduunyada lagu waarayn inay xisaabi taallo in adduunyadana aanay ciyaar aanay ahayn laakiin la isxisaabinayo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin inuu keligii u noqdo maantana waxaynu ku noolahay time iyo waqti layna mashquuliyey tv baa laynagu mashquuliyey internet baa laynagu mashquuliyey email baa laynagu mashquuliyey qofkii bini'aadiga waqtiga ma haystaba ya waqti intuu email ka jawaabayo intuu tv daawanayo intuu internetka from one side to another side uu kala socdo khalaas ba qabrino kama fakirin aakhirana kama fakirin laakiin ayuha al-akh wa ayatuha al-ukht waxaad ogaataa maalinta xabaasha dhabanka lagu dhigo ciidda inaanad email soo diri karin soo garan maysin tagas message soo diri kari maysid ee waxa is haystaa adiga xabaashaas haystaa adiga qabriga haystaa ee inta aanad is arkin adoo dhabankaasi lagu dhigay camuuda qabrigana aan lagu rogin ciida is xisaabi oo fakir baa loo jeedaa way ayay ikhwa akhawat markaan leenahay hal cibaadaysto waqtigan ay fitanku ay taagan yihiin markaan leenahay ayay ikhwa akhawat nafta gooni halala noqdo ma waxay u jeednaa dadka halaga fogaada loola jeedaa ma waxa loola jeedaa masaajidadun ha lagu xiroodo oo yaan dadka lala dhaqmin oo yaan dadka la dhexgelin oo al-amru ma'ruuf wa nahyi 'anil munkar wanaaga oo la isfaro xumaanta oo la isku diido dadka baahan oo la caawiyo danta muslimiinta oo laga fakiro waalidka oo loo ihsaan sameeyo reerka oo la kafaalo qaato macmaashi adduunyada faraha laga qaadaya macnaheedu taa maaha Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka soo wariyay inuu nabigi sallallahu alayhi wasallam uu yiri al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahim wuxuu nabigu yiri a'zamu ajran min alladhi la yukhalitu an-nasa ولا يصبر على أذاهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم مسلم كمسلمين تكاله وحن كذا المؤمن الذي يخالط الناس مؤمن كدتك دحقلا إلا دقما أرموه كقيب قاتا إلا تعاملا ويصبر على أذاهم دبت كسو قادنا وصبرا إننا الأخوة والأخوات يعني مركز dadka la dhaqmayso in masaajidooda aad imanayso
danahoogii aad ka shaqaynayso aad islaax ka dhex wado arrimahoogii aad magaranaysaa aad qayb ka tahay dhib baa ku soo gaadhaysaa marka dhibtaasi waxay u baahan tahay sabir waxaana taa dareemi karaa dadka masaajidada muslimiinta ka shaqeeya baa dareemi karaa iyadoo loo shaqaynayo iyadoo hawshoogii qayb laga yahay ayaa haddana waxa weeyaan dhib baa dadkii masaajidada ka shaqaynayay ama muslimiinta saacidayay dhib baa ka soo gaari kartaa qof waloo dadka la dhaqmo oo israa wuxuu qabana dhib baa soo gaaraysaa walidaalika ayuu nebigu sala allahu alay slam uu yidhi wayasbiru calaa adaahim ee dhibtoodana u sabraa kaasi ayaa acdamu ajran buu nebigu yidhi acdamu ajran min alladii laa yukhaalidu annaas walaa yasbiru calaa adaahim kaasaa ka khayr badan ninka isagu yidhaahdaa war anigu masaajidkan waa salaaddii baan ku tukanayaa gurigeega waa iskoo noqonayaa masaajid iyo dano muslimiin iyo imanka ayuha ikhwa akhawaat imanka mu'tamarkan aynu iskugu nimid walaalo rag iyo dumarba leh ayaa waqtigoodii ku bixiyey lacagtoodii ku bixiyey in danahoogii magaranaysaa kaga habsaamay oo ku dadaalay soo garanmaysin marka yacni muslimka isagu yidhaa anugu goonaa noqonaya gurigeygaan iska fadhiyaya danaha muslimiinta kama qayb qaadanayo waayo dhibtooda ugu sabri maayo kaasi waa laga khayr badan yahay kaa waa laga khayr badan yahay walidaalika ayaa waxaynu u baahannahay ayuha akhawaat inaynu fahanno haddii in dadka oo dhex gashaa ay muslimiintii saacidayso waayo waxa weeyaan ayuha akhawaat yacni muslimiinta inaad salaaddii jamaacada ka soo qayb gasho haddaad raggii tahay salaadihii ciidda xajkii waa la iskugu imanayaa salaadihii ciidda waa la iskugu imanaya xitaa nebigu sala allahu alay wasalam salaadda ciidda wuxuu odhan jiray ha soo baxaan xitaa dumarka xayd kale ha soo baxaan laakiin meeshaanu ku tukanayno ha ka fogaadaan waayo waa maxay waa inay ka qayb galaan khayrka ay muslimiintu iskugu yimaadeen maalintaa ciidda waxaan u jeedaa ayuha ikhwa akhawaat yacni cibaadada aynu leenahay wakhtigan ha la cibaadaysto maaha cibaadada salaada iyo soonka iyo xajka iyo tahajudka oo keliya laakiin waxa weeyaan cibaadada waxaynu nidhi waa bimacnaha shaamil cibaadadu noocyadii ay lahayd oo dhan waa in aynu ka qayb qaadanno oo waxaan ku dhiiri gelinayaa yacni khaasatan yacni dumarka muslimiinta ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qaybta weyn ay ka qaateen mu'tamarkan inay saasi masaajidada ay uga qayb qaataan madaarista qur-aanka lagu dhigto ay qayb ka qaataan oo ay noqdaan kuwa muslimiintii anfacaya ragga muslimiinta iyaguna inay mar walba يعني أي هرجوجيال كن نقضان مصلحة دي مسلمين دعوة مساجد دي هاوشي دينته أن هدان تأسيسنا روتين ما أيها الأخوة والأخوات أينو نري عبادنا أينو شاقينا ما هالصلاة دي يسوون كيو كليا وحن لنا هاي وقتك فتنك وتاجية هاي وإن عبادتي أتكون رقمته وقتك الصلاة يلا جهرين وقتك صونك يلا جهرين وقتك يعني ذكر إلهي يعني ذكر إلهي لا جهرين وقتك الدعوة اللي قلت له وين دعوة لا جهرين وقتك مسلمين تلا لا كلمين أي وين لا جهرين وقتك دنت مسلمين يا عرورة مسلمين تا إن الرموه قال لك فكر أيه وين لا جهرين بمعنى خيرك كقيب قادوية خيركم مال وشربه عمركم جابيه خيرك كقيب قادو أوردا كهرو اللي بيروح ديمان الساعة كقيب قادو خيرك أوراد هكاهرو ما أنت قدمته عمل صالح أنا كتك سياسة لورج هذا أيها الإخوة والأخوات إن لكن وحن مرة بقى أيها الإخوة والأخوات أن لإلابين إن عبادين كخاص كأه زمن كان في الندى قال له بهي وحدوا بهانت هاي إن أتصون كنا في لذا عاد بتصته وحدوا بهانت إن قراءة كتاب كإلهي عاد بتصته وحدوا بهانت إن ذكر إلهي سبحانه وتعالى عاد أفكار مر والبكوه هيسو وحدوا بهانت هدي عاد عمرة تيجي كرتين عاد عمرة أتقته عاد بتصته وحدوا بهانت عبادين كسجار كأه الصلاة الصوم الدعاء الذكر إلهي يقرأ نخرس كأ آدي آد بعض غوبة هنت هاي سبتنا نكون شيئا سبت وحويا أيها الأخوة والأخوات عبادين كسجار كأه أي نروى صلاة وصومك وتهجدك وذكر إلهي وكتاب كلاه الله خرستا وحويا وزاد ويا سهي أيو ويا هي أي أطهي عبادين كاسي قفك مؤمنك waxay siinaysaa qalbigaaga xasilooni bay siinaysaa waxay qalbigaaga siinaysaa inuu qalbigaagu si toos oo
adag ugu xidhmo ilaahay subxaana wa tacaala waxay kuu suuro gelinaysaa in haddii fitan badan ay dhacaan oo dadku ay diintooda ka fidmoobaan adiga sugnaan iyo habaad ayay ku siinaysaa sababta waa maxay dee waxaa tahay qof mar walba dikrigii ilaahay carabka ku haya waxaa tahay qof kitaabkii ilaahay subxana wa tacaala akhrisanaya waxaa tahay qof soonkiisii uu badan yahay waxaa tahay qof salaadiisii ay badan tahay walidaalika cilaaqadii aad ilaahay la lahayd xidhiidhkii aad ilaahay la lahayd subxaana wa tacaala ayaa badanaya walaasha muslimadda khaasatan waxaan odhan lahaa yacni cudurdaar ayuuna kuu noqon gurigaan hawlo badan ka haya waxaan walaasha muslimaddaa ku dardaari lahaa inay cibaadada ilaahay subxana wa tacaala ay badsato oo dikriga ilaahay adkaaru sabaax walmasaa kitaabka ilaahay oo akhrisato soonka naafilada ay ku dadaasho khayraadka oo ay magaranaysaa ay ku dadaasho sadaqada oo ay badsato khaasatan bishii ramadaan ayaa nagu soo socotaa bishii ramadaan ayaa inagu soo socotaa ilaahay subxana wa tacaala nasal allah jala wacala an yuballiqna ramadaan inuu dhammaanteenba inagoo caafimaad qabnayna gaadhsiiyo oo inooga dhigo kuwa sooma ee magaranaysaa in tahajud kula tukaday ilaahay inuu inaga dhigo bisha ramadaan ayayna kaa noqon wakti aad ku mashquulsan tahay cunto karin yacni guryaha muslimiinta badankooga walaasha muslimaddii waana khata ayuha alikhwa alakhawaat waa gaf weeyaan sagaalka aroornimo cuntada ay bilowdo ay wadaysa ilaa afurka waxaan goormay kitaab quraan akhriyaysaa goormay dikrigii ilaahay subxana wa tacaala ay ilaahay xusaysaa goormay magaranaysaa ay ilaahay cilaaqada la lahayd ay weynaynaysaa bisha ramadaan ayayna kaa noqon waqti aad cunto un kariso walaalka muslimkiina waa inuu xaaskiisa la fahmo in bisha ramadaan aanay ahayn bil cunto un la kariya aanay ahayn laakiin ay walaasha muslimaddu ay waqti u hesho inay ilaahay xusto inay kitaabka ilaahay akhrisato inay salaadaha ka qayb gasho inay khayrka ay qayb ay ku yeelato waay markaa ayuha ikhwa alakhawaat cibaadooyinkaasi waxay kuu ziyaadinayaan ma garanaysaa oy xoojinayaan cilaaqada ilaahi subxana wa tacaala aad la leedahay haddaan soo gebagabeeyo muxaadaradeeda ayuha ikhwa alakhawaat waxaan tilmaamayaa dhowr arrimood oo inagu taageeraya sidii aynu cibaadada u badsan lahayn waqtigan fitanka ah ee aynu joogno awalan maxaa kugu taageeraya waxaad aragtaa zaman cibaadadii ay dadka badankooga ay ka wahsadeen waxaad joogtaa walaalka muslimka ow zaman salaada fajriga dadka soo xaadiraa laba saf saddex saf ay yihiin waxaynu joognaa zaman ay dadkii ku mashquuleen adduunyo cibaadada ilaahay maxaa kugu saacidaya waxaa kugu saacidaya awalan wa qabla kulli shay inaad fahanto marka ugu horeysaba qiimaha adduunyadan waa inaad fahanto mataaca adduunyada barbar dhig mataaca aakhiro barbar dhig raaxada adduunyada barbar dhig raaxada jannada kitaabka ilaahay akhri sunnaha nabiga sala allahu calay wasalam akhri fahan in adduunyada aan lagu waarayn in raaxada aakhiro ay tahay mid aan la barbar dhigi karin raaxada adduunyada waayo waxa weeyaan raaxada adduunyadu waa dhammaad raaxada aakhira laakiin dhammaad ma laha markaad sidaa aad u fahamto in adduunyadii aakhiro aad isbarbar dhigto waxaa ku imanaysaa inaad aakhiro door biddo ayaa magaranaysaa kuu dhalanaysaa masalada labaad ayuha ikhwa alakhawaat ee kugu saacidaysaa waxa weeyaan waa adducaa ilaahay bari ilaahay subxana wa tacaala tawfiiq weydiiso ilaahay subxaana wa tacaala weydiiso inuu kugu kaalmeeyo cibaadadiisa allahuma cinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik ilaahay weydiiso inuu ilaahay ku caawiyo tawfiiqda ilaahay baa laga helaa hamoodin inaad adugu aad noqon karto qof caabido weyn waayo anigaa karti badan anigaa xoog badan laa waa tawfiiqda ilaahay weyn subxana wa tacaala ilaahay bari oo ilaahay u oy oo ilaahay ma garanaysaa weydiiso inuu cibaadadiisa iyo dikrigiisa inuu ku waafajiyo ilaahay bari oo ilaahay weydiiso ducada nebiga miyayna ka mid ahayn allaahumma muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik ilaaha quluubta gegediyow qalbigayga diintaada ku sug nebigii sala allahu calay wasalam ayaa sidaas ku ducaysan jiray ayuha alikhwa walakhawaat دعاء المؤمنين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ساسي من تكد عيستان إله قلوب تيدا أنت ظهرون سيكذب إله هو إيلين إله هو الليحين مركات دعاء بتصو وإله سبحانه وتعالى بري إن دعاء كو فضيبيو
إلهي سبحانه وتعالى بري إنه عبادة كوف ذيديو إلهي سبحانه وتعالى كبري أو ويديس إلهي توب إنه طاعديسة وكبش عليسيو ويا أيها الأخوة الأخوات وحول بابا قلبي أي كبل أمان مركا هدي قلبي جاي أنا عبادة إلهي وجهدين يوحوي مركا ينوي قوات كانسة طيب أرنك اللبات يسوون إنك ساعدية وحويا وتعالك لتعلي هي إلهي سبحانه وتعالى وهذا إلهي تعيش يا أيها الأخوة الأخوات وحمرك كوف وانيسا إن الإله رالي جلسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وعد كتر أن محمد هداد إلهي تعيشين فاتبعوني أنا الراعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله إله بين تعالان دونا ويغفر لكم ذنوبكم ذنوبتنا إله سبحانه وتعالى ودافع دونا ركا إلهي تعلو إلهي سيدك تعلان إساء وحوى النبي إلهي وحن الله واحد كتر هذا أنا الراعي طريق النبي محمد راعي هداد سايشان إلهي سبحانه وتعالى إن تعلان دونا ذنوبتنا ودافع دونا ركا أيها الأخوات يعني جعلك إلهي محا على مضوه وها على مضوه إنه تجعليه أتعلاته جعلك إلهي محاو على مضوه إن إلهي عبادي ستو جعلك إلهي محاو على مضوه وإن طاعد إلهي أدوهلو قلبك أدوهلو وحن الله سبحانه وتعالى أيها الأخوة والأخوات نكبرينا إنه دمانتين بعبادة ينفذ ذيديو إنه إلهي سبحانه وتعالى وقلوبتين وطاعد تعليسيو إنه الدين تيسا وإنه وصوه وأي وحوين أيها الأخوات يعني ugu dambayn noloshan adduunyada macnaheedu haddii aad doonayso inuu kuu hagaago ay noloshaadi kuu hagaagto oo aad wanaag adduunyada aad kaga tagto oo falaax aad adduunyada aad kaga tagto waa adigoo maalinka maanta ah ku dhinta diintaada weeyaan adoo diintaada ku dhinta oo islaamnimo khaatimada lagu khatimo ayaa ugu wanaagsan dhammaanteen ilaahay subxaanahu wa ta'aala khaatimada inoo hagaajiyo dunuubteena iyo dunuubta waalidiinteena ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha dhaafo مسلمين تنا إلهي سبحانه وتعالى رباطنا ميري شوغان با إلهي جل وعلا هكفر قابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته